Anwar Maxamuud Cabdulle waa aabba Soomaaliyeed oo dhalay 9 carruur ah. Dagaalada ka socda dalka Yemen ayuu ku waayay 7 ka mid ah carruurtiisii, hooyadood, ayeeyadood iyo sidoo kale habaryartood. Isaga iyo mid ka mid ah 2 gabdhood oo u soo hartay iminka dhaawac ayaa ka soo gaaray. Hadda waxa uu ku nool yahay duleedka magaalada Muqdisho, halkaas oo ku haysato duruuf nololeed oo aad u xun, maadaama 2 carruurta ee u hartay uu isagu aabbe iyo hooyo u yahay. isla markaana caloosha uu ka qalan yahay ma awoodo nolol maalmeed, waxa uu degan yahay kaam uu ka sii degan yahay qol yar oo ka samaysan cooshado iyo baco, halkaas oo xitaa waxa uu ku jiifto aysan u aalin. waxa aan kala sheekaystay xaaladiisa isagoo ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay caawiyaan maadaama uu xaaladaas xun ku jiro. Carruurtiisina 7 ka mid ah iyo hooyadood uu ku waayay dagaaladaasi ka socda dalka Yemen. السلام عليكم وعليكم المسلمين يمن أقصد داوحمي تدبع عنق أيدي عبرتي هذا الشيء أنا يقول أنا لسه قربك سنت أم كاي داوحنا اسمعوا عمر قيل وحنا يسولي دومك مع الحمل وما مقدش واحد ما أنت أفرد الدنيا وكل عايش أنا من المجال مقدش وما هذا السنة أنا عندك أنا كام كان هذا أمك حسونا ويليش وريا أو وركي هذا وأنا أسكن وده سنبور رجلا أبشر كه كل بشر ترى والله war ilaahay ku dhibiray bar waxa noogu bixisaa carruurtan iyo hooyadood markii carruurtaada hooyada dhibaatada ku dhacaysa bal qaabkii wax u dhaceen bal hadii aad si guud noogu wallahi baalidina wajig laada gabadheeda awjid dhaawac waay oo sintay dhaawac ka tahay kala abmaan markii sintay dhaawac ka tahay yeestan awjidin aniga sidoo kale firre ugu yahay يجد أبدا على شو تدور إنه وايد متي أيد وايد متي هاي إيش وايد متي ما أنت أنا أبي هاي يدت إيه نسكوه ده تتكلم ولا مسلمين وجيسي تهين وسمع عن إلى ديست مسلم الله نتيست ما أنت نويت ناس كده كنا واحد الدنيا عايز مركب حاجة أصلا ولا مسلمين دل إلا دي بد نك جو حاجة أنا إيش عابسين ويلي شو عليه يلي سعرتين وقرتي بل واحد نوجور بحسا نلاش هذا عاد كجرتو يو ما دابا عرورت هذا لبضع أو سجالك عروره هذا الشيء كسو هرتي يو بل واحد كور بحسا نلاش هذا عاد كناش والله واحد فرد دوما استعمل الجرويات تجينا بوش كاسيتي تذكر مسلم ولا عليه كي كرسي كي لب كرسي كي نزرسي كي على درسي عسكري نولا ما نحاول حتى ما عون مله هذا يجدنا كذا هذه مش كاسن عندنا كذا العرب ولسنا مله عشان ما يست وافرد دي ما انت هايستن مجرن مش كان لبض عروق دخ جرت وقرتي ماشي سجران واحد اقول اتا جيف اتا عايشن مله جدران لما يست واحد ما انت هايستن مجرن مثلا ولا مسلمين تاعك عسنا اني درتي سنه وتعمل وان يجيدين قبل السيريستا يويك سكليه يارن تدبنا يمنا يغنمت اييدي حبرت دشي waxa fardin ahaysan ma shaqaysan kara calaashan waa qalna lugna dhaawacan ka hadaa maanta wax meel leh oo xogay ilmihi asiis leh oo muusiis karib oo ana banaafis ka marka muslim walaalay muslimiinta waxa casana inay galbisay ila dibtiisi u caabiyo waqti 2 gabdhood oo hadda carruurtaadii ka soo hartay dabcan ada aabbi hooyo magaalada inta aadin uma soo xamaali kartid dhinac markii laga fiirshan dhaawac ayaa taa dhinaca kale markii laga fiirshan carruurtii wax ku haaya ma lahan bal markii noloshaas aad isku soo ururiso noqon nooca way marka dadka ku daawana aad u sawirto aad uga sheekayso tusaale ahaan oo kale maalintii qaabka aad wax u heshid ama carruurta aad u hayso ama aad $1 $2 $5 ninkasta wuxuu sii karo muslim walaalay muslimiinta sii karaan aan wallahi ilmahaas iska dhaxnoole habeenkii marka guriga maad 2 saac been casho karna dadka muslimka waxaan togsadaa digsiyaal iyo mindi saacan aan togsadaa ana gacanteedu u korsada ana dhakhtar geesto ana wax kasta u qabto maanta hooyaday aabay madiyam kana wax wiil iyo gabar بس كل اللي عقلتها ما إن شاء الله هو دتك الصوماليات ورجينا إنك عاون دونا وددوا ونكسن ولالكود اللي بنعاوية مركا دتك الصوماليات قربها كنا كو جودها كنا سواء كانوا واحد جرت جناعته محيطها باقة أما فرينتا هذا كان حاجة أصلا ولا مسلمين دلوقتي سنة جديدة لا دبتش إما درت إلى عقبة الربع وقرتي أنك كلام مركا أنفيرنا يمن مقالة دي أياد وقول يمن وحن دقنا بساتين دقنا أنكون ولا بساتين بلاد واحد على مسا سنة أياد يمن أتكون ولا وحن دقنا 4 سنة جديد بلاد 4 سنة جديد بلاد
markii caruurtaada Allah u naxariisto iyo hooyadeedii iyo ayeedii habartii ay dhimanayeen dagaal noocee ayaa socday qaab waxa socday madaafiic isdhaafsanay diyaaradaha dad turshinayeen waa anagoo markaas qadeenin wiilkan yar kaliya abshir kalaab wiilkan yariis kaliya ayaa guri ku jira bis kalaab sabax wiilkan kaliya markaas tanda soo siixisaan oo kale markaas u degnayn Yemanta saacad mid shay taqootida u degnayn oo kale aan u degnayn marka tendooyinka saan oo kale ay wiilkii soo siixi gabadhan yariiste nuurto kalaab gabadha yar yani iyo ayeeyadooda habararti hooyada dhashay tadaba cunug aniga gabadheed 14 qofoodeen 12 qofoodna xagee ku dhimay aniga gabadhan yariis kaliya ka badbaan anoo caloosheed balanka tala cunugan gabasaar gabadh oo diriskeyga oo dhimataan gabasaar kaad aan dusku xirtay caloosheed balanka tala ilaahay markaas wuxuu noo badbaadiyay oo maxaa la isheeg ruutiin kuwaas aan qaadan oo aniga boosaas ilaahay muslim nagu bixiyay dhufriya tuf abo tuf ya markaas ilaahay wuxuu noo bixiyay xuduuntii diintan qaadi oo nageysay meel oo Soomaali Maxamed ay joogto sidii dhaabac riyaa nuurta sidii dhaabac inuu qaad abu ibsal nagu geeyay ilaahay qaadintiisa abu wada waa kana alxamdulillah shukr wax dhawaata maanta adduunka qabno male wax la'aan darteed aad maanta yaas wax kale idaran male hooyadkaas hadii alab ma cun maysto wax ku gadan kara maysto haddaan dhaqta geelahay ya wax lacag mar aan ku isku imaanayno kale labada caruurta oo dusha ku saarnaan arkay markaad magaalada aad mas'uuliyad caruurta abu ha sidaan wata oo qof aan u tagay male baayadan qof u tagay dadkan muruq maalato way dhaqaale aadan habeenkii imaada laba saac habeenimo imaada yaa u tagay marka ciyaal yar joogo ciyaalkan ku roob way xaafadan jooga kuwa maanta ilmo isbixi kara ama sahay kara ama hadii ay dhumaata inta digintay dilira oo shay karna waa marka danta wuxuu galfay marka inaan sii wato oo soo wata ay eedantii u galfay habeenkii imaada oo labadooda dusha saarto laba saac imaada isha markaas soo dugtay masaajidkan soo dugtaa ka bacdan guri imaana casho kadib aad markaas u kariyaa shaqaas jirgan iyo soo qata digsiyaal imaacun ilmiga markaa markuu raali muslimiinta waxa ka codsanaa dal ila xasana Soomaali Maxamed nin arag waxay qabanay ila dirtiis insha Allah warjeena waxaad kale ii sheegtaa Anwar adiga reerkaaga ama waalidka ama reerkaaga xagee aniga hooyaday abi waa dhintay waxay degan jigjigo ay deganayeen ogaadid iyo sheekh alas marka lacag aan ku baxay jigjigo ku aadna لو بقول دروي لا تدري لا ما أوركنا بقول دروي فرشنا بين شمال وحجيت لو جير كرواي كواس الماء يري وحرينا أنت ناقب وحجيت كم مرة كلام مرة وعشان يا بين شمال وحجيت لو جيراي مقالنا وأنت مرحلة دوقتي لا بس الماء واتها هذا قرد لباتك سامر دبي وسامر تدبي بينك لبيتهم غفوا ذلك سوتي هذا ما عندنا سفر كذا ما قال هذا نيله هذا ما حسي هذا أمر ولا بدنا عنك قمي وحكي جارا يوحي هذا سفر وحنت وجو عتاه تاسر تذبت marka walaal waxa ka codsanaa ninka waxa igu taray ilaahay dadkiisa iyo caawiyaan wagartayaan marka ugu dambeyntii Anwar dadka Soomaaliyeed inay ku caawiyaan suurtagal noqoto inay ku caawiyaan raba lambar lagaala soo hagaajin karo ama meel wax lagu soo hagaajin karo aad adigu hadda afkaada ku sheegay nacam furiig waxa waa 9 82 76 markan ku celi eber 6 fura 9 waay 89 76 فراسة قال الله. أنور محمود عبد الله.